صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علفك عقارن عرل أنت لبيرو هيدا ربونك فودر. ما أنت وحن برنينا اسمها هويجا علفك عقارن لغو بيرو. يعني سلوا أبو رعجا علفك عقارن وهو بهاي اللو دياريه هوي خاصة أما جوري خاصة guriga asaga ayaan baranaynaa guriga ama hoyga calafka cagaaran ee carlaanta la beer lagu isticmaalo waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc hoyga automatic ah iyo hoyga macmalka ah waxaan ku bilaabaynaa hoyga automatic ayaan ka bilaabaynaa hoygani wuxuu ka kooban yahay dhisme ama container leh iskafaalooyin waad arkaysaa wuxuu leeyahay iskafaalooyinkan kala sareeya ayuu leeyahay waxa loogu talagalay foodarka in lagu beero ayaa loogu talagalay marka waxa weeyaan waa shalfisyo kala sareeya intaas oo 100 oo saxan ayaa galaysa midkiiba uu qaado intaas oo kiilo marka containerkan wuxuu awood u leeyahay inuu nasiiyo product go'an oo maalinle ah maalin walba 100 kiilo 200 kiilo nus tan hal tan ama ka badan ayaa daily looga goosanaya ama kaaga soo baxaysa marka waxaad ku xisaabtanaysaa had walba adiga iyo tabartaada wuxuu leeyahay iskafaale ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay tuubooyin iyo system lagu waraabiyo ayuu leeyahay systemka waraabka marka uu ka kooban yahay tuubooyin noosaladan biyaha firdhinayana uu leeyahay sidoo kale waxay la shaqeynayaan sansaro oo marka biyuhu ay ku yaraadaan oo uu qalalo wuxuu sameeyaa maxay raad biyihii baa isfuraya markii biyo ku filan uu helana biyihii uu iska jarahaya sidoo kale wuxuu leeyahay nalal ayuu leeyahay bedelkii cadceeda cawskan waxa cadceeda siinaya ama cadceeda bedelkeeda iftiinka siinaya waxa siinayaan u jeeda nalalka ayaa siinaya marka containerkani wuxuu leeyahay systemkii ama habkii ama ishii danabka ayuu leeyahay korontada uu ka helayay ama ha noqoto solar ama ha noqoto motor generator ha noqoto sidoo kale wuxuu leeyahay sensoro ama dareemayaal dareemaya oo controlaya qoyaanka marka qoyaanku uu zaid noqdo biyaha ayaa laga jaraya laga xirayaa ilaa biyuhu ay ka yaraanayaan sidoo kale heerkulka kuwa ilaalinaya ayuu leeyahay marka heerkulku kor u kaco zaid noqdo wuxuu leeyahay mukayif ayuu leeyahay uu isqaboojinaya markii qabowgu heer mucayan uu gaarana uu iska jaraya sidoo kale wuxuu leeyahay sensoro qaabilsan uumi biyoodka macnaha humidity-ga gudaha ku jira marka uu bato wuxuu sameeyaa hawada gudaha ku jirta la bixinaya waxa lagu soo bedelayaa hooyo hawo cusub oo biyuhu ku yar yihiin oo normal si looga dhigo xaalad yaani uumi biyoodka hawada ku jira uu yahay normal sidoo kale elayska laftirkiisa sensor dareemaya jira marka waxa soo dhan ayaa wada shaqeynaya containerku marka waxa weeyaan waa automatic asagoo dhan automatic buu ku shaqeynayaa qofka ka shaqeynaya kaliya mas'uuliyadda saaran waxay tahay inuu abuurkii oo uu nadiifiyay oo uu dhaqay oo saxanka ku shubo booski loogu talagalay saaro ka maanta la goosanayo diyaarka ahna inuu ka dejiyo kii cusbaana uu saaro albaabkana uu u xiro inta kaliya laga rabaa iyo inuu hubsado in korontadiisii ay joogto oo si sax ah oo u shaqeynayo waxa kale oo uu leeyahay systemkani uu leeyahay nidaam loo yaqaan ozone-ku waxa weeyaan mishiin yar wuxuu dhaliyaa hawada loo yaqaan ozone-ka oo laga sameeyo oxygen-ta oo 3 atom la ah yani oxygen-ti 2 atom bay leedahay laakiin jihaaskani wuxuu sameeyaa labadii atom ee oxygen-ta iyada isla socota ayuu kala jabinayaa marka mid walba wuxuu u tagayaa 2 atom oo oxygen marka waxa abuurmaysa oxygen 3 atom la ah oo loo yaqaan ozone-tu marka waa jeermistile aad u xoogan weeyaan neefta ozone-ka ayaa biyaha lagu furaya marka systemka saad arkaysaan shalfisada si u kala sareeyaan ka sare biyaha ka yimaada way soo degayaan tuubadan ay soo gudbayaan ilaa saxanka baalkii baaldigan hoose ay ku ururaan biyaha baaldiga ku ururay mar labaad ayaa bam yar qaadaya kor ayuu ka soo bilaabaya ayagii ayaa lagu waraabinaya marka in ayaga lagu waraabiyo waxa suurta gelinaya waa ozone-ka oo ka dilaya jeermiska marka waxa suurtagal ah biyaha baaldiga ku jira in inta cawskan uu nooga soo go'ayo dhan dhowr litir 10 litir ama 20 litir kaliya inaan ku isticmaalna ayaa suurtagal ah ogow haddaadan jihaaskan ama qalabkan ozone-ka aadan haysan suurtagal kuma ahan
inaad biyihii aad isticmaashay mar kale aad ku celiso, sababtoo ah biyihii waxaa dhici karta in bacteria iyo jeermis iyo fungi ay ku dhashaan, taasna ay keento in maxsuulkii aad sugaysay inuu kaa halaabo ayaa suurtagal ah. nooca labaad waa hoyga hydroponic foodarka lagu sameeyo ee macmalka ah. noocan macmalka ah waxaa weeyaan qof walba taagtiisa ayuu tallaabsadaaye qof walba wuxuu awoodo ayuu ka sameynayaa. alwaax, tiirar, balastic, bir, wixii kuu sahlan ood heli kartid waxaa lagu dadayaa waa bac iyo maxaa idhaahdaa shabaq ayaa lagu dadahayaa. sidoo kale iskafaalooyinka laftirkooda waxaad ka samaysan kartaa bir, waxaad ka samayn karaysaa balastic. qaabkan ayaa loo sameynayaa. kan laftirkiisu waa qaab kale ama design kale oo loo samayn karo hoyga hydroponic foodarka. shalfisyadiina waad arkaysaan, saxamada unbaa la saarahayaa. markaan saxamada u gudubna fiiri saxamada kan, saxamadan way kala sareeyaan, geeska duleelay ku leeyihiin, biyihii zaa'idka ayaa soo hooraya halkan ayay ka baxayaan, kuwii kor ka yimid kan labaad bay ku tifqayaan, ka bacdina waxay ku da'ayaan kanaalka markay ka yimaadaanna waxay kusii shubmayaan baaldigan ayay ku shubmayaan. baaldiga markay ku shubmaan haddaad rabto inaad dib u isticmaasho waa inaad haysato aaladda ozonka si biyihii loo jeermistiro. biyaha haddii la jeermistiro mar labaad waad isticmaali kartaa, waadna u suura gelinaysaa inay ka kore intay ka yimaadaan ka hoose ku tifqaan, ka bacdina la jeermistiro. ogow haddii aadan haysan systemka ozonka, biyaha kor ka yimid inay ka hoose ku tifqaan waa laga ilaaliyaa. saxamada siyaabo kala duwan baa loo sameeyaa, maadooyinka kala duwanna waa laga sameeyaa, cabiro kala duwanna waa loo yeelaa. mar walbana waxay ku xiran tahay baahidaada iyo waxa aad heli karayso. saxamadan waa plastic, halkan duleelo ayay ku leeyihiin darfaha. duleeladaas waxaa loogu talagalay biyaha dheeraadka inay ka baxaan. kan laftigiisa wuxuu ka mid yahay saxamada loogu talagalay hydroponic foodarka. kan waad arkaysaa wuxuu ka sameeyey frameku waa alwaax, wareega alwaax ayuu ka sameeyey, kadibna bac ayuu ku dhejiyey, shabaq bir ah ayuu dusha ka saaray si bacda aysan u dhaqdhaqaaqin. marka hydroponic foodarka marka alwaax laga sameeyo ama tiirar laga sameeyo waxaad arkaysaa maxaa idhaahdaaye in loo sameeyey qaab janjeer ah. fiiri waad arkaysaa saxanka wuxuu u yaalaa qaab janjeera ayuu u yaalaa, biyuhu tartiib ayay uga tasleynayaan. waxaana fiican biyaha kor ka imaanaya inaysan ka labaad ku da'in, ka labaad biyaha ka yimidna ka saddexaad hoose inaysan u gudbin, saas ayaa fiican. laakiin ninkan dhisaynka uu samaystay biyihii way isu wada gudbayaan, laakiin biyuhu ugu dambeyn kanaalkaasay raacayaan oo bannaanka u saaraya. marka casharkeena maanta insha allahu tacaala intaas ayuu ku egyahay. waxaa noo dhiman xalqo kale ayaa noo dhiman oo ah qaabka loo abuuro iyo tallaabooyinka kow ilaa meesha ugu dambeysa. aad baad u mahadsantihiin dhegaysigiina. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.